بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا عشر أنا ugu talagalay caawa inaan uga hadlo if statements cashirkan waa cashir yar iska kooban laakiin muhiimad gaara leh marka la joogo programming conditionska waxyaabaha ugu muhiimsan programkaada ka dhigaya wax qofka userka ah interact ula sameyn karo yani waxyaabuhu soo gelinaya waxyaabahaas waa ka hubinaysaa wixii adiga aragtay miya haddaysan ahayn waxaa leedahay maya kuwan way qaldan yihiin kuwan aad soo gelis way saxan yihiin qaybtan waa error ka jira waxyaabahaas oo dhan qofka yani qofka userka programkaada isticmaalayo waxyaabaha adiga aad ku xadidaysid waxyaabaha aad rabtid in soo geliya aad ka hubiso waxyaabaha loo isticmaalayo dhan waa conditionska muhiimad gaara ayayna leeyihiin markii la joogo programming waxaan ka hadli doonaa cawada hadduu ilaah yiraahdo if else if iyo else hadda tusaale ahaan oo kale haddii aan dhaho xarafka a haddaan variable ka samaysto aan ku shubto qiimaha la yiraahdo 10 hadda waxaan rabaa marka a 10 may ka weyn tahay so 10 way ka yar tahay inaan hubiyo maxaan sameynaa marka if waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay a ka weyn tahay 10 تذكري طبعا كده مثلا كده وحالة يسوى دعوة وحي كوين تهي وين تهي طبعا سوما البرنامج كان هذا انتو معنا waxay leegtahay qiimaha 11 kadib oo hubinaa a ma ka weyn tahay 10 ha kadib wuxuu soo daawacaa a waxay ka weyn tahay 10 markana waxaan leeyahay build and run markaasa a waxay ka weyn tahay 10 sax sooma laakiin haddii aan 9 dhaho hadda programka marka aan run dhaho build and run dhaho intuu imaanaa qiimaha waxay leegtahay 9 kadib wuxuu leeyahay hubi ma ka weyn tahay 10 maya waxba ima soo daawacaya markaas maxaa yeelay conditionkan false ayuu noqonaa waa kaasa marka meeshaan la joogo kale waxaa la isticmaalaa else waxaan leeyahay markaas else kadib waxaan leeyahay si isoo daawac kama weyno 10 waa kaasa kama weyno 10 haddii qiimaha aan hadda ka dhigo 11 waxaa isoo daawacmaya waxay ka weyn tahay 10 waa kaasa waxay ka weyn tahay 10 marka ugu horeysa halkan ayuu imaanaa tusaale ahaan oo kale 9keeda ku celi sida ay u shaqeynaa programka 9keeda ku celi kadib wuxuu leeyahay intuu imaanaa hubi a ma ka weyn tahay 10 maya conditionkan muxuu noqonaa false على طول intuu imaanaa waxa ku jira ayuu ii daawacaa laakiin haddii inta 11 ay tahay waxay ka weyn tahay 10 sooma halkan oo imaanaa a ma ka weyn tahay 10 ha conditionkan true ayuu noqonaa kan ayuu daawacaa else lama daawacayo waxyaabaa igu qoran elstan bloggan dhan lama daawacayo laakiin wixii inta ku jira dhan hadday rabaan intay rabaan hala ekaadaan 10 line ha noqdaano 40 line ha noqdaano wixii rabaan ha noqdaano bloggan wax ku jiro dhan haddii conditionkan uu true noqdo waa la ii daawaca hadduu noqon waayaan wixii bloggan ku jiro dhan waa la ii daawaca markii laga bilaabo inta ilaa inta waxaan rajeynayaa inaad fahanteen marka waxaan rabaa program yar oo 3 number qiimaha ugu yar markasta soo daawacayo inaan hal mar sameeyo tusaale ahaan oo kale waxaad waxay la mid tahay 5 kadib waxaan leeyahay b waxay la mid tahay 10 kadib waxaan leeyahay int c
waxay la mid tahay 15 hadda qiimaha ugu yar waa kee waa soma kadib intaan iska tir waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay if a haddii ay ka yar tahay b waxaa la isticmaalaa kale calaamadan an kadib waxaan leeyahay a ka yar tahay c meeshaas maxaa ka cad haddii a ka yar tahay b haddana a ee ka yar tahay c meeshaas waxaa kaaga soo baxaya kan ugu yar inuu a yahay sooma waxaan leeyahay marka c out so daa a ayaa ugu yar haddana waxaan rabaa b inaan hubiyo inay tahay kan ugu yar conditionkan hadduu mar true noqdo kan kale ma soo aadayo kan kaliya ayuu daawacaa qaybtan kale ma imaanay kadib waxaan leeyahay marka else if haddana b ya sidoo kale leeyahay haddii b ee ka yar tahay a an b ee ka yar tahay c meeshaas maxaa ka cad marka in xarafka b uu u yaryahay sooma waxaan leeyahay marka c out b ayaa ugu yar haddii marka ku hadduu inta imaado programka kan falsa noqdo kanna uu falsa noqdo maxaa iska cad meeshaas in ay tahay kan ugu yar c halkaas ayaa waxaan ka isticmaalayaa ls waxaan leeyahay marka ii daawa c ayaa ugu yar sidoo kale waxaan rajeynayaa in an waxyaabay u taagan tahay aan fahansanahay an waxay u taagan tahay kan hadduu true noqdo kanna uu true noqdo programka sax waaye qaybtan dhexa ayuu soo galaa laakiin haddii a ka yar tahay b laakiin a aysan ka yarin c programku waa khalad qaybtan ma soo galaayo false ayay noqonaysaa qaybtan haddana imaanaya b ma ka yar tahay a an b ma ka yar tahay c sidaas ay u shaqeynaa hadda xarafka ugu yar waa kee waa a kan koowaad waa inuu soo daawacaa a ayaa ugu yar tusaale ahaan oo kale inta waxaa ka dhigtaa 50 intana 10keeda ku daa laakiin meeshaan hal ka dhig hadda kay ugu yar c yaa ugu yar waxaa laga rabaa inuu dhaa c ayaa ugu yar markaas waxaan rajeynayaa inaad fahanteen if ls if iyo ls waxaan idin leeyahay fi amaan illah